السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو أفر حكمدود أفر تاسو عيانكو تيسيدين مقتبة أفر قلوعا أفر بالوغو توسيا أفر قلوعا أفر بالوغو توسيا محيهين وكي تنكو بعد أود قلوعا هنقول بالوغو توسيا أودو أما جيد لسوقو يو قلوعا قف بس دو فهمي كرو بعد ربطينا التوسيسو وأنا الاستعماشا هنقول كنا كل قفكي باديك يمد بقرانا وجد سيدان ويج صور كاس تقريبا وكسر دوي هاي ساسو كلا يويج هاي مركز ربطنا أودا توسيسو وين هنقول كاس عاد كتوسيسا وكي حكمة الله بعد محيط هاي لفق الله عن كابتن بالغو توسيا لف با شبتي أما لوج أما قعان أما فاد إن لا توسيا الربا وإن لكبا مركا كبدنا وقيب كمدا دبيبينتا أما الدوينتا لفتاس جبتي حكمة صدحات معيتي برق الله عن دبا لغو توسيا برتو حين أغني إني أدك تهي ويدا هنقول يحيابهاس دي متوسين كرتو لكن دب هداش شدو ومركا عساد كتوسيسو وادجلسو برتي ويدلالي ساكي دي من برتي سيدا أدربتو أي أدكا ديغيسا مركا دبكا أدجلسو أي تشيلعدو كدي من سيدا أدربتو baad ka dhigaysaa birta xigmadda ugu dambaysa ee ah xigmadda afraad xaaje qalloocan odayaal wax garad ah baa lagu toosiyaa xaaje qalloocan xaajadu waa arrin taagan markaas oo si khaldan ku socoto ooma dad tusaalahaan isku dhacay oo arrintoodu ay u baahantay in la xaliyo arrintaas waxay u baahantay dad wax garad ah odayaal keliya uma baahna odayaal laakiin shardigu muxuu yahay wax garad ah waxaa macquul qofku inuu oday yahay ay jahantii laakiin wax garadkii uu ka maqan yahay marka xigmadan afraad laba qodob ama laba condition bay wataa midda koobaad waa qofkaas inuu oday yahay khasabna maaha taas oo dhalinyaro xitaa uu noqon karaa laakiin odaynimadu waa qayb ka mid ah tan labaad baa laakiin qasab ah oo ah inuu wax garad yahay waxaa macquul inuu dhalinyaro yahay laakiin uu wax garad yahay okay haddaan dul maro mar kale afartan xikmadood ee loo baahan yahay haddii ay qalloocsamaan in la toosiyo tan koobaad waa ood qalloocan geed qalloocsamay ul qalloocsan waxaa lagu toosiya hangool oo aan idiin taswiiriyey sidaas kusoo dhadhawaanaya taqriiban okay tan labaadna waa laf waa la wada garanayaa ama ingiliishka lagu yaha bonis haddii ay qalloocsanto waxaa lagu toosinayaa kabitaan in la kabo midda saddexaad waa bir qalloocan dab baa lagu toosiyaa dabku birta uu ka adag yahay dab baa la gelinayaa birtii oo jilcaysaa kadibna sidaas rabtaad ka dhiganaysaa midda afaraad xaaje qalloocan xaajadu waa arrin qalloocantay oo ama ka dhaxayso family ama laba reer ama laba wadan ama laba qof waxay u baahan tahay odayaal shardiguna uu ahaa waxgarad hadduu xitaa dhalinyaro yahay inuu waxgarad yahay wey hadduu oday yahay waxgarad hadda waxaa dhacda dad badan odayaal ah haddana laakiin waxgaradnimadaas ay qaarkood ka maqan tahay afartaa xigmadood ha lagu dadaalo nabadgelyo.